الله إن كله حنين طبعا وحن كهلنا أو هذا عن كسب سنين شخصية لكن هي حالة تلاقي جودها وحن كهلنا دبتوين كقحوتي هاي يستدين نبلغه هلي كرا طبعا. ها رضوان وقحوتي واحد كانوا عوّد دي ما أنت بروبلم ده. ها صحيح لكن رضوان ودي ما أنت لما أنت بروبلم كصوماليا تجري السياسة ده وعوّد القحوتي صوماليا كل جودة حتى يسمون بعض الصوماليا. وإذا ما أنت لا تجيبوا مخنين. marka maxay tahay waxa leedahay waa in hogaamiyaasha dhinaca siyaasadda khilaafaadka u dhaxeeya ay xaliyaan oo hawsha ay wadaan ay kamira dhaliyaan waa sidaas burgo waa in dadka shanta boqol baarlamaanka iyo aqoonyahanada dhamaantood inay naga qabtaan qofka gardaran waa taa walaal aad iyo aad baa maasan tahay waa maasan tahay walaal waa tahay khadka xiga halo assalaamu calaykum السلام عليكم رضوان وكسلامي أديك iyo wadaadka kula jooga aad baa maasantaa walaal magacaaga aniga Cabdi Xafiid Faarax baa la yiraahdaa waxaan jeclahay in aan contribution ka qayb qaato ku soo dhaw ninka kula fadhiya aad buu fikirkiisa ii soo jiitay waana loo baahan yahay rag isaga oo kala ah ummadda Soomaaliyeed oo horseeda isu keena fikradahooda maaragtay meel la gaarsiiyo meel ay noqoto marka waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ragga fikirka fiican leh waa loo baahan yahay in aynan ka daalin macnaha waxa laga yaabaa in mar uun ay la qaato oo ay maaragtay ummadda Soomaaliyeed ku badbaado waxaan tusaale rabay in aan soo qaato Hindiya 200 oo sano ayaa waxa guursanay Ingiriiska maalinta waxa soo baxnay la dhaw Mahatma Gandhi wuxuu mideeyay dadkii tijaarta ahaa iyo dadkii masaakiinta ahaa wuxuu mideeyay fikirkii dadkii diimaha kala soo horjeeday islaamka iyo hinduuska cod midaysan oo dagaal lahayn buu ayuu ku gaarsiiyay xorriyad 200 oo sano gumaysiga Ingiriiska marka waxaan qabaa inaan ka caajisin fikirka fiican ummadda Soomaaliyeedna aan midayno iyadoo oo laga fiirin dhinac qabiil iyo dhinac maaragtay gobolaysi cid kasta oo fikirkeedu uu fiican yahay oo aqoonyahana umad Soomaaliyeed way u baahan tahay marka waxaan qabaa ragga nabadoon.com sida ay wish aan ka maqlay TV waa barkulan u baahan yahay oo waa garta arinta laakiin muhiimka aan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo waxay tahay dabcan taariikhda iyo tusaalaha aad soo qaadatay annagoo ka duulayna marka Soomaaliya la eego dadka Soomaalidu waxa la socotaa inay yihiin dad isku dhaqana isku afa isku diina laakiin waxyaabaha mararka qaar kood u baahan in afkaartooda la isaga soo dhaweeyo waxa kamid ah dabcan waxoogaa xasaasiyadaha dhinaca qabiilka mararka qaar kood siyaabaha dhinaca fahamka diinta islaamka oo ay ku kala duwan yihiin mararka qaar kood culimada iyo kooxaha jira ee islaamiyiinta waxa kaloo iyana muhiim ah mararka qaar kood in la dareemo danta guud iyo danta qaranka ma isleedahay afkaarta la rabo in Soomaaliya lagu mideeyo waa in maaragtay meelahaas laga duulaa Ridwan waad mahadsantahay waana su'aal fiican ummadda Soomaaliyeed oo dhan anagoo dhan isku qabiil baana isku diin baana waxaan classification ka ama dadka kala saarayo waxa weeye divide and rule waxa ay u yaqaaniin dadka gumaysiga qayb iyo xukun kurteen anagu isku diin baana isku af baana Soomaaliya waa Soomaaliya waa qaran jira oo United Nations ku jira ilaa hadda United Nations ku kamid yahay marka yanaan dib u guranin aan ku dhiirano annaga waxaan rabnaa sovereignty-geena iyo maaragtay annagoo nabad ah oo qori ku direen baan rabnaa ummadda Soomaaliyeed waxaan xaq u leenahay inaan u sheegno adduunka iyo beesha caalamka yani dal xor ah oo Soomaaliya la yiraahdo oo dadkiisuna nabad jecel inaan nahay oo kaliya ayaa rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed iyo adduunka aan u sheegno waxyaabaha kala qaybinaya dadka Soomaalida haddii ay tahay dhinaca dabcan kooxaha arrimaha maaragtay sida diinta loo dabaqayo ku kala duwan iyo mararka qaar kood maamulada jira ma waxa leedahay waa wax ay dad ajnabi ah wadaan oo ay dadka ku kala qaybinayaan anigu ma aaminsani qof walba nin walba deegaan buu ka yimid qofna meel cid la ka iman dadku waa inuu isdhex maraa dadku waa Soomaali magacyadana lala baxay anigu ma aaminsanayo 10 madaxweyne ma run ahaan fikrad ahaan anigu ma qabo dadka haday u arkaan anigu xal u marka Soomaaliya way midaysan tahay waa qaran jira yani aan ku dhiirano xaqa aan leenahay in aan cod baahsan aan ku sheegana adduunka oo nabad ah
inagoona qori ama tacasub waa gartay ugu dambeyn dabcan shalay iyo maanta sida aad la socoto meelo fara badan oo dunida ah waxaa laga hadlaya dhibaatooyinka haysta qaxootiga haddii dadka Soomaalidu ay si qoto dheer u eegaan xadgudubyada haysta iyo sida dadka Soomaalidu ay ugu duloobeen meelo fara badan oo caalamka ma islaadahay qayb waxay ka qaadan kartaa inay isku soo dhawaadaan oo ay dantooda ka fakaraan hadda ay ugu fiican tahay dawladda hadda farmaajo maaragtay qasabka looga dejiyay waxay noo horseeday waxayna tustay fikirka fiican inuu Soomaaliya isu keeni karo meel walba aan joogno waan mideysanahay aqoonyahanku uu batay waana noqonaynaa dawlad kasta oo timaaday iyo militarigeena waxa ku ritaweynaa inaan anaga biilano oo been caalam dambe inoo biilin insha Allah aad iyo aad baa maasantaa walaal khadka xiga halo السلام عليكم وعليكم السلام خدمة ما إله لا ولا ها ولا وكل هلا مقعة ومقعة عبد الحجين غيره ولا لو حوالي برنامج كان هذا ويعقي أو عدي بروفيسور فكرتي سنة هذا وطاجر سنة وما سنتها أنت تكتب قحوتي وحيالها صوبي ترى أو البلانك ما تنهي وحاكم مدح حق عنا ma ogyihiin waxa ay Soomaali ay u qaban karaan amba waxa loogu talagalay inay qabtaan maanta waxaa dalka xildhibaan u ah dad fara badan oo soo kabooda kan ugu yar 200 oo qofood oo dilay meesha jooga qaar fara badan oo dabcan nadiifan way ku jiraan dabcan marka walaal waxa sabaa aniga in inaha horta marka hore iyo qabyaalada loo gudbo oo reer qurac iyo reer qanfar ay u gudbaan qarannimo baabaalana qaxootinimo ee dhashaa marka ma aqaan wallahi arinta Soomaaliya qaabka uu cabiri karo laakiin kullu waxa waa arrin murugadeeda leh waa mar walba xumo fara badan ugu heesaa professorkan waxa leeyahay professor dadaal insha Allah ta'ala mar uu baa guusha la gaari doona Soomaali dhibaatada maanta waxaa ka mid ah in la baray self interest wax la yiraahdo oo dana gaar inay fiirsadaan dana gaar iyo qarannimada way kala fog yihiin marka insha Allah dalka waa tahay aad iyo aad baa maasan tahay khadka xiga halow waa tahay qofkaas uma suura gelin mar kale qofka xiga aan fursad siiyo halow هلو هلو qofkaas waxaad moodaa in halo iska gaabi fadlan TV-ga adoo raalli ah halo waa tahay halo halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga walaal walaal waxa la yiraahdaa Cabdikariim Maxamed Cawaale waxaan ka soo hadlayaa Jarmalka ayo walaal ku soo dhaw barnaamijka waa la socotaa maxaa ku biirin lahayd aragtidaada adiga arrimaha dhibaatooyinka jira sidee nabad lagu heli karaa sidee qaxootiga dhibaatooyinka iska looga gudbi karaa waxaan ku biirinayaa fikradayda waxaan aad uga xumahay dhibaatada ka taagan Soomaaliya gaartay dhibaatadaasi bariyahanba waxaanu aad uga wareeray maxaa maamulkeena iyo arrimaheena ajaanib gacanta u galiyay aye waxa weeyaan qodaxda kugu taala inaad gacantaada isaga jirta weey carabta waxay ku mahmaahdaa ma yaxukak ilaa dufrak haddii Kampala ama Addis Ababa ama meelo kale la inooga tagay maamulkeedu inoo qabtaan wax warigeena inoo hagaagaya male maxaa fikrada maxaa rabista shacbigeena loo caburinaya halkan aan mudaharaadyada ka daawanaynay dadkeena waxay doonayaan maxaa loo diidaya maxaa wixii Kampala wixii Uganda waxay tiri maxaa inoo baahiyay walaalay fikradaydu waxay tahay haddii aan ummadda Soomaalidu iyadoo aanay tashanin oo waxay doonaysaa aanay hirgelinin cid kale u talin mayso waa tahay walaal fikradaasaan u maaragtay aad iyo aad baa umahadsan tahay waa tahay barnaamijka gabagabadiisa ayaan ku jirnaa Dr. Cabdicasiis Muumin mayo u soo noqdo
dabcan sida dadka qaar ay ka dhawaajiyeen waxa kaliya ee qaxootinimada looga bixi karo waxa ay tahay in la helo qarannimo Soomaaliyeed, in la helo midnimo Soomaaliyeed, in la helo aragti ay dadka Soomaalidu ku midaysan yihiin oo horumar iyo isfaham iyo wada noolaansho ku saabsan. tiina waxaad moodaa in aysan weli muuqan. ilaa goorma lagu jiri karaa ay kula tahay arrimahan oo dadka Soomaalidu ay gaari karaan heer ay ku bislaadaan? dadka Soomaalidu waa bisil yihiin, bisil ahaan waa la bisil yahay, laakiin tanaasul aan weli jirin iyo unity macna midnimo. horta Soomaaliya dhibka ugu weyn waa infrastructure-kii waxaa dumay dowladnimo. ma jiro maamul dowladda adduunyada dhinac kasta la fidaa, ama dictator ahaado ama xukun dimuqraadi ahaado ama nooc walba ahaado, wuxuu ku dhisan yahay waa infrastructure tiirur ku dhisan yahay oo dowladnimada iyo qarannimada keenayso. infrastructure-kaas waa dunsan yahay, waxaa ka mid ah militarigii, booliiskii, dhaqaalihii, tacliintii, waxbarashadii, caafimaadkii, kulli waa wada dunsan yihiin. mar haddii wada dunsan yihiin oo magaalada dhan hub wada yaallo, waa adag tahay in nabad la helo, lagu helo awood kale ama awood aniga aan haddii qofka xoog badan Soomaaliya ma jiro, kulli la wada siman yahay. marka dadka inay quursadaan, waxaa dhiman kaliya inay quursadaan, ay yiraahdaan qorigii mana anfacayee nabadaan rabnaaye, dhiig waa nagu filan yahay, waa la heli karaa. laakiin waxaa loo baahan yahay dad dhex galo, dadkan inaan la dhex galo oo la yiraahdo sidaan maahan, aan tanaasul samayno. marka tanaasulkaas waxaa lagu heli karaa in dad maskax leh ay dadkii ay dhexdhexaadiyaan, ay u tagaan. dadka dagaalamaya kulligeed waa wada dadkeennii, waa ujeednaa wuu qaldan yahay. marka haddii infrastructure-kaas lasoo dhisin, dowladnimo maba la dhisi karaba. waxaa loo baahan yahay infrastructure-kii in la dhiso. horta kow waxaa ka horeysa in la mideeyo, la fariisto, la israaco oo la ogolaado in aan qori la tuuraynin. iyadoo qorigaas la tuuraya ama hebelowaa fiican ama sidaana fiican ma toosayso. marka intaas la helo, tallaabooyin kale ku xigayso. waxaa ku xigayso in la dhiso awooddii tiirarkii dumay, sida gaashaandhigii, booliiskii, iyo dad xun waa jiraan, laakiin waa less than 1% Soomaalidu. intaas Soomaalida waxay dhahaan hal malaay bada uriya. dadka Soomaalida hadda buuqa ee wada haddii la xisaabo waa very fraction waay. laakiin dadka buuqa wada mararka qaarkood taageero ku helaya siyaabo khaldan. khilaafka keenay Soomaalida waxay u maleeyaan waxa taagan in aan Arsenal iyo Manchester aan kala difaacayna. ma ahan. Arsenal waa Bologna, haddii gool laga dhaliyo lagu kala tagaa dhib male. kan laakiin dhiigaa daadanayno inaan kala divorce u kala noqono. haddana maaha laba qayb, maaha 100 qaybaa loo kala qaybay. waa aragtay hadda Soomaaliya hadda waxaan u jeedaa ilaa 22 dowladood in kasoo bixi doonto haddii khilaafkan la istaagin. loo ujeedaa dowlado badan kasoo bixi doono in future. waxaa kasoo bixayso in tuulo yar ay noqoto dowlad dii, markee waxaa dhuntay kalsoonidii, waxaa dhuntay ixtiraamkii, waxaa dhumay. marka aniga qof idilaya ma la noolaan kartid. marka ama ka soo carar ama diid ama ka go-a imaanaysa. marka walaalayaal Soomaalinimada aan soo celino wadankan anagaa leh yaa iskale. nina wuxuu yiri cadaan anagoo Soomaaliya wadankan yaa loo yiri, maahan dadkaan yiri dad kale. marka Soomaaliya waxaa idiin sheegaya anaga ma lihin, dadkii lahaa la raadiyo. ma jiro adduunyada tusaalaan noqonay oo adduunyada dhan wixii dhibaato dhacdo kale Soomaaliya kale. marka aan xishoono. aad buu mahadsan yahay Dr. Cabdicasiis Muumin Mayow oo ah aqoon-yahan Soomaaliyeed oo degan magaalada London iyo dalka China, isla markaana xilligan ku sugnaa magaalada London oo barnaamijkan igala qayb qaadanayay. iyadoo guud ahaan barnaamijkan uga hadlaynay guud ahaan dhibaatooyinka haysta qaxootiga Soomaalida, iyadoo dabcan shalayna ay ku beegnayd maalinta sida weyn dunida looga xuso dhibaatooyinka iyo xadgudubyada la soo gudboonaada dadyowga qaxootiga ee dunida ku nool oo Soomaaliduna ay si weyn uga dhex muuqanayaan. barnaamijkan mid lamid ah intaanu ku kulmi doona haddii eebaha wadalhi eedmo. waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin la nabadgeliyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.